بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا حلقدي تضباط كورسكي aan ciwaanka uga dhignay sidee baan u noqdaa qof muthaqafa ama aqoon-yahana halqadan waxaan kaga sheekeyn doonaa hadii la yiraahdo xirfadaha asaasiga ama mahaaraadka asaasiga ee u baahan yahay qofka muthaqafka si uu u noqdo qof muthaqaf ah oo dhameystiran oo dhinacyo badan ka buuxa xirfadaha waxa kamid ah xirfadaha ama aaladaha iyo agabka fikirka sida critical thinking oo kale qofku in uu wax observe gareyn karayo analyze gareyn karayo dadna wixii uu dhiraandiriyay uu eegay ama uu hadii wax akhrinay noqoto hadii waaqac uu akhrinay noqoto hadii xog uu akhrinay noqoto uu analyze gareyn lahaa uu dhiraandirin lahaa dadna uu u tarjumi lahaa oo macna iyo mafhuum uu ka qaadanayo uu la soo bixi lahaa waxa kamid ah problem solving oo kale مشكلة مركز حلنيسو مركز جوان جاريسو مركز وعال أورين سمعنيسو سيدا وعال كان أدو دران درينيسا أو أدو أنالايز جرينيسا وحكم ده وأد مهم حرفها فكر كنا كم ده قفكو إنه سؤاله الدون لا إيمان كريه إنه سؤاله الدون أبوري كريه إنه سؤاله سويدين كريه أدو الدون وحكم ده حرفها أد كمهم كوا وحكم ده sida si guud sida loo dhiraandiriyo evaluation ka loogu sameeyo ama loo analyze gareeyo buugta qofka uu akhrinayo waaqaca uu ku nool yahay ilaa akhrin bay u baahan tahay akhrintu kaliya ma mid buugta waaqaca xitaa waa la akhriyaa iyo waxa kugu hareeraysan iyo dhacdooyinka dhacaya iyo taariikhda waxa isdaba socda akhrin bay u baahan tahay marka si guud aan u yiraahdo xirfadaha dhiraandirinta iyo fikirka iyo agabyada fikirka ee kala duwan iyo noocyada fikirka arimaha qofka muthaqafka inuu wax ka ogaado aad bay muhiim u tahay qaybta labaad ee muhiimka ama xirfadaha labaad ee muhiimka waxa weey waa xirfadaha waxbarashada xirfadaha qofka sidoo wax u baran lahaa waa fannin aad u ballaaran sida xogaha loo ururiyo maanta waxaan noolnahay xilli information overload uu dadku hayo oo wacaalku uu laba jibaarmayo labadii maalmoodba uu laga yaabo inuu wacaalku in badan oo kamid ah ay wax iska bedelayaan dunida cid waliba wax ay qoraysaa xitaa xogaha qofku u baahan yahay oo ku dhex jira maartay malaayiinta xogo ee kale ama macluumaad ama aqoon ee dunida taala waxa u baahan yahay sida uu raadin lahaa sida uu akhris degdega u sameyn lahaa waxna yiraahdaan speed reading u sameyn lahaa sida artikelada kala duwan kutubta kala duwan sida uu akhrin lahaa kutub walba waxa jira hab loo akhriyo jira kutubta qaar waxay u baahan yihiin in la dhamiyo kutubta qaar waxay u baahan yihiin in la liqo kutubta qaar waxay u baahan yihiin in la calaaliyo marka noocyada kala duwan ee xirfadaha habka wax loo xogta loo qoro macluumaadka kutubta laga baxo kala duwan iyadana fanidana علومتاس markaad u baahan tahay ama xirfadaha waxbarashada xilliga uu qofka tahay inuu wax barto hababka ay tahay qofka inuu wax u xifdiyo you name it yani waxa ku jira xirfado aad u fara badan ba learning-ka ku jira ama hababka wax loo barto ku jira marka kuwaas oo dhan waxaad u baahan tahay inaad barato aad wax ka ogaato xirfadaha saddexaad qofka ay tahay inuu wax ka ogaado waxa weeye waxaan inta badan laga hadal oo la yiraahdo biaseska qofka ama xaglimaha qofka uu la imanayo qof muthaqaf hada doonaysid inaad noqotid waxaad u baahan tahay inaad xogta aad sheegaysidna inaad si bias ama xaglin ay ka maran tahay inaad u eegto aad u sheegto xogta aad ururinayso iyo dhinacyada kala duwan aad wax ka aqriyayso ama aad wax ka eegayso haday tahay waxaad aqriyayso iyo haday tahay dhacdooyinka aad aqriyaysaba inaad tahay qof biaska ka yara maran qof aan xaglimo u xaglin cid gooniya oo si objective oo mawduuciya wax u eegi karaya marar badan hadaad eegto dadkeena in badan oo aqoon-yahankeena kamid ah waxaad arkaysaa qofku isagoo aan kala saari kareynin fikirkiisa iyo shakhsiyadiisa distance bay u baahan tahay qofka muthaqafka wuxuu u baahan yahay inuu fikirka isagoo uu qabo iyo shakhsiyadiisa inuu kala saari karayo waxa inaad personalize aadan ka dhigin ama aadan shakhsiyadaynin dhacdada doontaa inaad ka dhex bixi karayso way hadaad ku dhex milanto
waxaad noqonaysaa qof caadifiya oo si rational uma fikir karaysa marka xirfadaha biaseska iyo lagu ogaado iyo logical biaska xitaa marka adigu wax gudbinaysid ay ka mid yihiin maaragtay slippery slope-ka iyo muxuu ahaa bandwagonka iyo xirfad biaseska inuu qofka iska ilaaliyo biaska xog qaadashada oo ay ka mid tahay confirmation bias availability bias biaseska kala duwan waa xirfado qofku u baahan yahay waa gaabis caqliyadeena ku jira habkii aan soo barbaarnay xirfad la'aanta waayo bani aadamku wuxuu u baahan yahay inuu xirfadiisa kobciyo in inagu filan maaha hadda halkaad u banbaxayso xirfado gooniyo ay kaaga baahan tahay baa jira ay tahay inaad si aad u fikirto ay tahay si aad maaragtay aqoontaada u qaadato si ay tahay inaad aad ula falgasho ay tahay marka biaseskaas blind spotyada qofka uu leeyahay si uu qof muthaqafa u noqdo loo dhageysto wuxuu baahan inuu biaseska iskala dagaalamo xirfadda afaraad ama xirfadaha kale ee muhiimka ah loo baahan yahay qofka muthaqafka inuu leeyahay waxa weeye xirfadda fagaara ka hadalka sida wax loo jeediyo qofku aqoontiisa lama ogaan karayo ama ummadda uma gudbin karayo ama qof muthaqafa ma noqon karayo haddii aanu awood uu wax ku gudbiyo aanu lahayn awoodaha laba aanu kala qaybinaynaa qaybtan waxaan kaga hadlayaa awoodda fagaara ka hadalka fagaara ka hadalku aad buu muhiim u yahay xogta aad jeedinaysid sidaad u diyaarinayso wadooyinka aad marinayso janalada aad marinayso sidaad u qiimeyn lahayd cidda ku dhageysanaysa si aad u siiso xogta muhiimka u ah waqtiga iyaga sidaad u akhriyi lahayd body language-ka waxaa la yidhaahdaa xogta aan jeedinayno ama dadkaan u jeedinayno boqolkii 30 weeyaan marka la isku dardaro erayada aad taxayso iyo macnaha xogta aad gudbinayso iyo toonkaaga marka la isku daro boqolkii 70 in ku dhow waxa weeye waa body language-kaaga jidhkaaga sida dadka ula hadlayo waa iyadana waa luqadan oo la barto oo aad muhiim u ah waxa kamid ah noocyada kala duwan ee wax loo jeediyo muxaadarada sida loo jeediyo way ka duwan tahay sida presentationka loo jeediyo sida presentationka caadiga ah saacada socon loo jeediyo way ka duwan tahay sida loo jeediyo tababarka loo qabto marka noocyada kala duwan venueska ereyooyinka kala duwan ee wax loo jeediyo inaad wax ka ogaato aad bay muhiim u tahay sidoo kale powerpoint sida loo xirfadaha powerpoint-ga xirfado dhan weeyaan oo u baahan aqoonkaaga baahan inaad powerpoint diyaarin karayso isu soo wada xoori xirfadda fagaara ka hadalka iyo sida wax loo jeediyo xirfadda qofka muthaqafka waa inuu leeyahay qaybta shanaad aan ku soo gabagabeynayo xalqadan walow ay badan yihiin xirfadaha looga baahan yahay qofka muthaqafka laakiin waxaan isku daynaa xalqada idin ku soo gudbiyo kuwa ugu muhiimsana marka qaybtan ku soo gabagabeynayo waxa weeye qofka muthaqafka waa inuu yaqaano xirfadaha qoraalka waayo waxa uu gudbinayaa maanta caalamku way soo bedelaya waqtiga hadalka kaliya lagu koobnaa waa laga gudbayaa qofka muthaqafka waxa looga baahan inuu wax qori karayo oo qoraal ku gudbin karayo aqoonta uu gudbinayo iyo xogaha iyo mashaakisha uu doonayo inuu xalliyo marka aad bay muhiim u tahay inuu xirfadaha aqoon u leeyahay sida wax loo qoro writing-ka iyo qoraalka aad qoraysid nooca uu yahay ma narrative style ba ma creative style ba oo creative writing ba ma objective baad wax u qoraysaa ma si persuasive baad wax u qoraysaa arrimahaas aad bay muhiim sidoo kale naxwaha luqadda aad wax ku qoraysid inaad naxwaheeda wax ka taqaano punctuation-keeda astaamaynta inaad wax ka taqaano spellingkeeda dad badan oo maanta wax qoro waxaad arkaysaa ku rafaadsan xarfaha laba laama waxay ka mid tahay habka wax loo qoro waa spellingkii weeyaan maxaad ku kala saaraysaa marka luqadda aad wax ku qoraysid waxaad u baahan tahay grammarkeedii inaad taqaanid spellingkeedii inaad taqaanid punctuationkeedii waxyaabaha la xidhiidha astaamaynteedii inaad taqaanid sidoo kale waxaa muhiim ah inaad wax ka taqaano maraaxisha iyo hanaanka qoraalka u maro brainstormingkiisa marka qofku inuu tahay marka hore brainstorm gareeyo draftingkiisa inuu qofku freestyle sameeyo wax draft gareeyo deetana marka kadib uu revision sameeyo kadib uu edit gareeyo kadib uu proof reading sameeyo waa maraaxil waxoo dhan xirfada oo qofku ay tahay inuu barto xalqadiina maanta toddobaad inaasan kusoo ururinaya inta aan xalqo kale ama xalqada 8aad aan u gudbi doono ama aan isugu iman doono waxaan idin rajaynaya kheyraad fara badan xalqadeena maanta inaasan kusoo ururinaya intaan xalqada 8aad aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaya kheyraad fara badan aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu